kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay in heshiis cusub ka saxiixatay 4 ka mid ah xidigaheeda koowaad kadib guushii weyneed ee ka gaadheen toddobaadkan kooxda Ferencvaros kulan ka tirsanay wareegga gurubyada tartanka UEFA Champions League. Kooxda Barcelona ayaa xaqiijisay in heshiis cusub ka saxiixatay xidigaha Gerard Piqué, Marc-Andre ter Stegen, Clement Lenglet iyo Frenkie de Jong, kuwaasoo ogolaaday inay hoos u dhigaan mushaharooda kooxda si u meel dhigaan sabab la xiriira xanuunka coronavirus. daafaca Gerard Piqué ayaa qalin ku duugay heshiis kooxda kula joogi doono ilaa xagaaga 2024 iyadoo heshiiska lagu burburi karo lacag dhan 50 milyan oo euro. Goolahayaha koowaad ee kooxda Barcelona Marc-Andre ter Stegen ayaa haatan dhaawac kaga maqan kooxda ayaa qalin ku duugay heshiis kooxda kusii joogi doono ilaa xagaaga 2025 iyadoo heshiiska lagu burburi karo lacag dhan 50 milyan. daafac dhexreer Faransa Clement Lenglet ayaa qalinka ku duugay heshiis kooxda kusii joogi doono ilaa xagaaga 2026 iyadoo lacagta lagu burburi karo heshiiskiisa laga dhigay 300 oo milyan. ugu dambeyn Barcelona ayaa hubisay mustaqbalka xidiga khadka dhexe De Jong kaasoo qalin ku duugay heshiis ilaa xagaaga 2026 iyadoo heshiiskiisa lagu burburi karo lacag dhan 400 oo milyan.